danaha ka dhaxeeya iyo sida ugu kaalin qaadeen dalka Djibouti wadayaabas Djibouti dadkeeda iyo deegaankeeduba golayaasha dalkeena ay madax ka yihiin sidee markaa aqliyadu u saamaxaysaa deegaanka Djibouti iyo dawladdiisa dadkii ka tirsanaayo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland xildhibaano xasaanad la ku leh oo xukuumadda ka tirsan ayaa dibindaabyada iyo deganaansho darrada dalka Soomaaliland ka shaqeynaya sidee iga soo horjeeda xildhibaanay ku leeyihiin war xukuumaddeena waxaan leeyahay aqligu hayna shaqeeyo xal kale lama raadin waxa loo leeyahay Hargeysa noogu yimaadaan annaga naqina Mareykanka war ka daayma waxaan waa Mareykanka رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أول دقة يا بهذا صحافة سوماليلاند waxaan jeclahay inaan si kooban uga hadlo arrimaha Somaliland iyo Djibouti doorashadii ka dhacday dalkeena ee isku lamaanayd baarlamaanka iyo golaha deegaanka 2021 madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu shakhsiyan martiqaad igu fidiyay madaxtooyada dalka Djibouti kulanka iyaga madaxweynaha Djibouti waxa fariin weyn oo runtii micno ballaaran iyo miisaan maskaxdeeda ku yeelatay uu igu sheegay qasriga madaxtooyada sababta martiqaadku waxay ahayd inuu shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland doorashadii ay u dareereen quruxday lahayd deganaanshaha dalkooda iyo miisaanka dimuqraadiyadda iyo hanaankeena dawladnimo oo biladaha Djibouti ta ugu qaalisana laygu maamuusay anoo ka wakiila shacabkii sharafta lahaa ee 22,000 ee cod igu siiyey qabiil la'aanta ee igu qiimeeyey hanaanka qarannimo madaxweyne Geelle wuxuu maalintaa fariin weyn uu igu yidhi farxad gaar ah aniga ay tahay dadka reer Somaliland dawladnimadooda doorashooyinka quruxda badan ay galeen ee weliba Soomaali maanta sumadda gaarka ah ay ugu noqdeen inay bisayl ilbaxnimo deganaansho dimuqraadiyad doorasho iyo deganaansho ay muujiyaan iyagoo muddo dheer u samreeyay dawladnimadooda Ismaaciil waxa iskaaga baray quruxda Somaliland Ismaaciil waxa iskaaga baray qiimaha doorashadaasi ay lahayd Ismaaciil waxa iskaaga baray shacabka Somaliland sida uga bislaadeen qabyaalada ismalihi dawladda Djibouti iyo madaxweynaheedu wax dibindaabiyo ku adeganaanshaha mandaqada guud ahaan iyo gaar ahaan dalkeena iyo dawladnimadeena ay wadaan balse haday khilaaf siyaasi jiro diblomaasiyadda dunidu waxay nafaraysaa in hab degan oo dawladnimo ah wax loo dhamaysto si cunf iyo dagaal lana aan arrimaha dawladaha ka dhaxeeya loo geliyo dalka Djibouti gaar ahaan caasimadiisu kaartee kaste ama xaafad kaste oo aad tagto waxaad ugu tagaysaa intii naas xaafadda iga duubaysaa dadaad wada heeltiin baa degan waxaan isleeyahay Djibouti iyo Hargeysa waa hal magaalo oo ay midayso walaalnimo xididnimo xigaalnimo wada dhalasho wax isku ahaansho midnimo iyo sokoyanimo marka laga yimaado hanaanka dawladnimo oo iyaduna dalada guud ee dalalka aynu nahay 88kii markii Hargeysa diyuuraduhu ay rusheynayeen shacabkii Somaliland ee qaxay
ee ka qaxay hubka noocyadiisa kala duwan oo annagu aanu ka mid ahayn barta loo irkaday ee hantidii iyo maatidii iyo ubadkii iyo naftiba la biday Jabuuti baa ahayd annagu waxaan deganayn siis xaafadda la yidhaahdo saanfiilka agtiisaanu deganayn bartaasaanu nabad ku helnay bartaasaanu joognay boqolaal kale oo maanta ama ganacsato ah ama haldoorka dalkana danaha ka dhaxeeya iyo sida ugu kaalin qaadeen dalka Jabuuti waad yaabas Jabuuti dadkeeda iyo deegaankeeduba golayaasha dalkeena ayay madax ka yihiin golaha guurtida iga soo horjeeda xildhibaanay ku leeyihiin golahan baarlamaanka xildhibaankii ugu jiray waa kii dhintay xukuumadda wasiirre iyo agaasimayaal bay ku leeyihiin sidee markaa aqliyaddu u saamaxaysaa deegaanka Jabuuti iyo dawladdiisa dadkii ka tirsanaayo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland xildhibaano xasaanad leh ku leh oo xukuumadda ka tirsan ayaa dibindaabyada iyo deganaansho darrada dalka Soomaaliland ka shaqeynaya war xukuumaddeena waxaan leeyahay aqligu hayna shaqeeyo oo maalinba qori dable cid haynoo sulina oo haddii aad wax aragtaan hab diblomaasiyadeed bay dunidu ku dhaqantaaye diblomaasiyadda iyo qaabkeeda aynu wax ka baran safiir baa Jabuuti inoo jooga safiir Jabuuti ay leedahay Soomaaliland buu jooga madaxweynaha jooga madaxweynaynu leenahay hanaan iyo waxa weeyaan iyo qaab loo wada xiriiro dawladuhu wada xiriiraan baa jira shalay tooleynu ogeyno xukuumaddeenu isku qaadaysay dawlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya oo Mustafa Cagjar uu lahaa nafis siyaasadeed hayga dayr ogeynina xal laga keeni kari waayay dadkeena aynu jecelnahay ee reeso inuu ogeyn wixii kala dhex maro gobol dhan maanta aynu ku laana waxaan ognahay 24 saacadood dad masaakiina oo iyagii nolol u baahan oo dadka Muqdisho degana oo maalinna la qarxinayo maalinna maad aragtay qiimihii noloshoodu qiriir ku jirto in loo bu'ayo ninka siyaasiga ee Muqdisho jooga dawladnimadeena hadduu diidan yahay dagaalkeenu la galana oo mid diblomaasiyadeed laakiin ma aha in la isku bu'o oo kolba cuqdad laynoo geliyo Jabuuti waa dad walaalaheena anugu ka barkhad ahaan waxaan ahay xildhibaan golaha baarlamaanka ka tirsan Soomaaliland baan ku dhashay awowgay ku dhasho aabahay ku dhasho abka aaban ka soo jeedin maalin kaliya ma jeclin calanka Soomaaliland iyo ciideeda iyo cisigeedu inay ciid dibindaabiyo u geysato maalin dowladdu ka ogaa Jineefaan ka yimid ano calanka Soomaaliland hu su'aalaha ugu badan ee UN Centerka Jineefa la naga weydiinayay waxa ahayd khilaafiyada Soomaaliland ka jir oo nu daadafeynoo lahayn dad mida oo qurux badan oo wanaagsan baan oo calankayga Soomaaliland ku faan cid aanu ka yeelaynina ma jirto deganaansho darrada Soomaaliland laakiin waxaanu faraynaa xukuumadda war gudaheena dhitooyinka iyo dhibaatooyinka maanta dhaxalka ah ee bogo madow ee taariikhda ku yaala bulshadu ay ku kala dhaqaaqday waxa kamid ah mahadooyin aan maskaxda muwaadiniinta marnaba ka baxay ninka suxufiga hadduu yiraahdo war waxba inaga khaldan ninka siyaasiga hadduu yiraahdo war waxba inaga khaldan ninka madax dhaqameedka hadduu yiraahdo waxba inaga khaldan dalkan iyo dadkan adeer waa la wada leeyahay supermarket nin uu leeyahay uu ka adeegta ma waxa la oranayaa waa cadowga gudaha ummadaada markaad kala qaybiso adcisiga iyo haybada iyo karaamada muwaadin leeyahay aad garan weydo ee xuquuqdiisa dastuurka aad garan weydo aad iyaga boqo iyo balanbal iyo balaayo dhex dhigto waxa hubantiya cid kastaba inay ku soo bohliyoobiso haddaad aragto duul wada dhasho diirka ku ciloobay iyagoo soo diidan baa laga wada daraystaa war Cabdiraxmaan Cirro oo musharax madaxweynaha oo xisbi hogaaminaya hadduu danta isiraahdo dalka wax ka dheh oo walaaladii dalkan halgankiisii ay ku dhinteen oo raggaad garanayseen ay ku suntan halgankii SNM to lixle kow ka ahaa oo Maxamed Deere kalaba ahaa oo dadka ugu badan deegaanka Cirro ay ahaayeen ayaa la oranayaa waa cadowga gudaha kii dadkiisu sidaa ugu dhinteen ay ugu dhibaatoodeen markuu cadowga gudaha noqdo ka kalena muxuu noqonayaa war nin suldaano madax dhaqameed oo 100 sannadood saldana tirsanaya oo Somaliland ah ayaa hadlaya nin caaqil ah hadlaya mas'uul dawladda baa soo fadhiisanaya xukuumadda baa soo reeyo cadowga gudaha
boqol sannadood baa Somaliland saldarada deegaankiisa dunidu ku garanaysa masal hore cadowga gudaha war waxba naga khaldan maxaa cadowga gudaha wan nabarada la xoqay ninka siyaasiga ay dan ka hadlay ilaado war ka daay waxa loo cadowga gudaha deficiencies-kan gudaha yaala ayaa ka muhiimsan ka banaanka yaala inay xukuumaddu culayska ka saarto oo kuwa ururada hogaaminaya gudoomiyeyaasha iyo ururada dalka maanta ka jira ee soo baxay ee muwaadiniinta ay sharafta leh xisbiyada madaxdooda golayaasha qaranka madaxdiisa madax dhaqameedka bahda saxaafadda qaybaha kala duwan ee bulshada in madal qaran la fidiyo wixii dhibaato dhexdeena yeelayntaanu xallisano inagoo mida aynu cid kasta orano war maxaad naga rabtaan dal iyo dad madax bannaan baanu nahay haddaynu cid heshiis la gelayno haddaynan la gelaynin midnimada gudaheena miisaan iyo macna dunida ka yeelanaysa laakiin ciddii garanaysay cid ay tahay baan la garanay tusaale sidan u kala irdhowna waxaa tusaale inoogu filan ninka la yidhaha cusmaan cumar dool baa magaalada ibi waa nin odaya markuu soo baxay anigu dalka maan joogniyo marka la xidhayo toona wuxuu yidhi waxaan u tegayaa inantaydii oo aan meherinayo madaarka markuu yimid baa sidii maafiyada inta loogu daataa meel la gashaday 11 cishaa sidii neef xoolaa la haystay cusbitalka Hargeysa la keeno askar baa loo keenay sidii dil iyo maadar uu yahay xildhibaanadii golayaasha loo diiday inay u tagaan salaadiintii baa loo diiday hadda uu xanuunsaday in la arko 11 cisho kadibna sidii neef xoolaa baa la iska soo bax rule of law dalku mee eed loo haystay mee maxkamadii maada xeer ilaalintii maada qofka karaamadiisa iyo cirdigiisa hadii wax lagu waayo deen mogdhow sharciyan dalbada habo hadduu dambi qaranka ka galanay inuu xukun maro oo procedure-ka caadiga maraba xabadaha ka dhacay madaarka madax baa joogtay yani bil aadanka ilaahay markuu maamulku ka qalloocdo sidan oo kala dhacays maanta miir doorsoonkan ka maamulkeena haysta waxa kamid ah dawladda Mareykan la daayaga oo super power oo dunida maanta dalalka ugu waaweyn haddii dawladda Mareykan iyo Soomaaliland maanta isqabsadaan wuxuuna isugu yimaadaan maamulka maanta dalka jooga wuxuu oranaya dooxa Hargeysa marsha war wuxuu Mareykan ka damay warbaashu milga u baahan tahay waxa u baahan tahay macnayn mas'uuliyadu u baahan tahay waxa u baahan tahay miisaan u baahan tahay waxa u baahan tahay martabad u baahan tahay waan inaynu istaawana maaha waa inaan runta isku sheegno jabhadaha la sheegayo war ninka ree awdal anu waxa rumaysanahay in Soomaaliland leeyahay calankeedu Soomaaliland leeyahay nabadgelyadeedu leeyahay dawladnimadeedu leeyahay bartaasa 19 xoolihii ree awdal lahaayeen intay qowraceen oo meel la isugu keenay Soomaaliland oo dawlad la unkay oo doorasho dhacday ayay soo galbiyeen Hargeysa keenay wardaninka ree awdal ama dibadda ha joogo oo dibad wareeg ha noqdo ama dalka ha joogo oo xisbi ama urur madaxa ka ahaado ama xukuumad ha ku jiro ama golaha ku jirey hadduu la war waxba khaldan de xaq buu u leeyahay oo nin Soomaaliland diro dalka leh adigu adan mas'uulay muwaadinkaaga meelaha ka hadlaya ama dalka kula jooga miiska keen war maxaad u baahanta hadda mansabkan ku fadhiyo ay tahay oo ku qaracayso saana danta guud u murgacan oo dawladnimadeenu aanu qalacu galin oo quruxdeena iyo wada jirkeena ummadeed u socoto kursigayga fadhiisade saamiga siyaasiga in hoos loo eego marka ay dhiin meeda stage-ka saa loo soo fadhiisto maxkamadii sare gudoomiyaheedii wasiirkii maaliyadda wasiirkii arrimaha gudaha kii arrimaha dibadda janankii militariga janankii bilayska madaxweynihii madaxdii kale wuxuba deegaan noqdaan wada qofka awdal degan ama ka sool degan ama ka kale ku dhaw warday qanci waxbaan kula leeyahay macadu gudaha warada dal kale soo fadhiiso weey Axmed Ismaaciil Sabatar hadduu raw waxba naga qaloocan de boqolin loogu jawaaban ba warda kale aqoon baad leedahay maxaa naga khaldan seen wuxuu qurxinaa qarankeenu suumiisaan ku yeelanaya anigu ma qabo dib ka weyn dibta gudaha inoo taala ina banaanka inaga imanayso war Jabuuti
ehel walaalnimo dowladnimo wax isku ahaansho ummadnimo islaamnimo intaasba way naga dhaxaysa war maalinba qoriga iyagaan meel sulinay war deganaansho dunida iyo mandaqada aynu kula noolaan war doorashooyinkeena iibsameeyay dunida aynu tusnay iyo midnimadeena aynu ka shaqeyno war waxa dhexdeena yaala inagu aynu dhameysano war ka sool jooga aynu u yeedhno aynu oranno war maxaa khaldamay war ciidankeeni mee war miisaankeeni mee war maamuuskeeni mee war kuwa mucaaradka iyo kuwa muxaafidka miye gacmaha isqabsadaan waxba dadku isweydiinayaan oo dhamasaas maalin kasta hadii dawladnimadeenu iyo madaxtinimadeenu marba meelna sudho waa miir doorsoon iyo macna beel baan anagu arkay war waxaan leeyahay dagaaladan kolba meel aad nagaga furaysaan goolayaal baynu leenahay talada goolaha baarlamaanku waxbuu ku leeyahay guurtidu waxbuu ku leeyahay ururadu waxbay ku leeyahay madax dhaqameedku waxbay ku leeyahay salaadiintu waxbay ku leeyahay ganacsatadu waxbay ku leeyahay collective responsibility weeyaan waxaan war miiska ballaariya war mucaarid iyo muxaafid ha la isku yimaado war madax dhaqameed ha la isku yimaado war maxay naga qaloocan seer wuxuu saxnaayo quruxdeenu ay u soo noqotay anu kaadan war Djibouti aynu ka dayno inaan maanta iyagana isku soo jeedin sool baynu ogna waxaanu ognaa kililkeenu ogna dadka Soomaaliyeed baynu ogna islaanta Muqdisho joogta miskiinta ayana ka yaree bajaajka ku shaqaysanaya isagiiba dawladnimo doonaya sabab aniga laygu gooyo inaan u duceeyo mooyaan Ilaahu nabadgeliyada iyo wanaaga iyo xasiloonidaan haysana si mooyaan sabab bartan aan ugu booliyoobo garanba maayo isir Soomaaliyeed iyo wada dhalasho iyo wax isku ahaansho waxaan ka weyn bayna dhaxyaan boqolaal reer Muqdisho ah hantidoodu Hargeysa taal oo inala jooga war dadka dareenkooda aynu dhowr war ummadda midnimadeeda iyo walaalnimadeeda aynu dhowr war xukuumaduhu waxay ka shaqeeyaan isku haynta dalka iyo dadka kii mucaaradka hadaad eriyato oo kii maalinka hor yimaada aad eriyato adigu maxaad noqonaysaa hadaad tiraahdo kaan nacana ila naca kaan jeclaadana ila jeclaada war de Ilaahay nabigiisu baa waxay nacana lana naca waxay jeclaadana lana jeclaada de faral diiniya ardalka Djibouti walaalaanahay wax badan naga dhaxeeyo war maanta ayna sulina war diblomaasiyad isticmaalo wixii aad arkaysaan hoos loo dhay intaas waxaan ku abhinaynaa xukuumadda maanta joogta dadka Soomaaliland waxaan leeyahay war hilbooda dhashay hayb quraati ka galbeed joogay ka bari joogaba waxayna midayo qarannimo baa jirta war midnimadeena aynu laashano wada jirkeena aynu laashano dariskeena dawladnimadeenu kula hagaagayno ha noqoto mid degan Ilaahay ma keenay mar kale aan ku celinayaa tii haynu ku jirno dawladda Mareykan baan idin haddii maanta aynu isqabsanno walaal Mareykan iyo Soomaaliland baa haystaa xal kale lama raadin waxa la oranay doo Hargeysa ay noogu yimaadaan annaga naqina Mareykan war ka daayma waxaan waa Mareykan heerkaas markaas la marana usoo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka Dahab Plus nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo deg App Store iyo Play Store abka Dahab Plus maasha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeegga internetka ay fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarla ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121